كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. intaa dabadeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo adduunka ka joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan dabadeed waxa aynu bilaabi doonaa barnaamij taxane noqon doona. Intaanan barnaamijka u guda gelin, dadka inta aanay garanayn, magacaygu waa Maxamed Saalax. waxa aan markaa qaybta radiology-ga ee caafimaadka aan ka wadaa jaamacadda Lahore ee magaalada Lahore. sidoo kale waxa aan qaybta fiqiga iyo usuushiisa aan ka wadaa jaamacadda Islaamiga ah ee Minnesota. waxa aan ahay aasaasaha iyo maamulaha madrasadda online-ka ah ee Al-Firdaws Islamic Online. intaa dabadeed barnaamijka aynu bilaabi doono waxa aynu u bixinay ama aynu ugu magac darnay barnaamijka barbaarinta ubadka. barnaamijka barbaarinta ubadka waxa aynu u qaybin doonaa laba qaybood oo aad u muhiima. qaybta koowaad waxa aynu ka dhigi doonaa icdaadu tarbiyatu at-tifli, child rearing preparation, yacni ilmaha in la diyaariyo, oo taas macnaheedu waxa weeye ilmaha inta aanu korin diyaarinta iyo korinta loo baahan yahay qaabka loo korinayo. qaybtaa waxa aynu u qaybin doonaa 4 qaybood oo iyaguna muhiim ah. qaybta koowaad waxa aynu ka dhigi doonaa yacni hordhac aynu u diri doono dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed. qaybta labaad waxa aynu ka warrami doonaa siyaabaha ubadka loo tarbiyeeyo. qaybta labaad waxaynu u sii qaybin doonaa 3 qaybood oo muhiim ah. kow, waxaynu ka dhigi doonaa qayb waalidka laazim ku ah oo loo baahan yahay waalidku in ay sameeyaan. qaybta labaad ee soo hoosgeli doonta tarbiyadda ubadka waxa ka mid ah inaynu markaa bixinno qayb markaa ka warramaysa waxyaabaha ubadka saameeya markaa caqligooda. qaybta saddexaad waxaynu ka dhigi doonaa waxyaabaha yacni ubadka saameeya naftooda. marka labadaa qaybood waxay ka mid yihiin labada qaybood ee marka ubadka la barbaarinayo aadka ugu muhiimsan ee wax kastaba ka horeeya in ubadka caqligiisa waxyaabo saameynaya lagu koriyo, iyo in naftiisa waxyaabo raad badan ku reeba markaa la baro oo lagu koriyo. waxay la mid yihiin kaanamaa sidii qof yacni geed beeranayo oo kale. labadaas waxay u baahan yihiin, marka geedkaasi wuxuu u baahan yahay in qof aqoon leh uu geedka markaa ka shaqeeyo si markaa geedkaas fiican u soo bixi lahaa, midho fiican looga goosan lahaa mare. ubadkuna waa kaasoo kale. haddii ubadku uu helo qof aan markaa aqoon lahayn, waalidka aan waxba aanay garanayn, yacni dee ubad qadalan baa inoo soo baxaya marka sida halkaa uu geedka qadalan u soo baxaya dan si fiican loo waraabin, si fiican looga shaqaynin. qaybta markaa saddexaad waxaynu ka dhigi doonaa yacni siyaabaha ubadka loo markaa edbiyo, oo waxa aynu markaa iyadana hoos keeni doonaa siyaabaha markaa child discipline-ka methodska, habka ilmaha loo edbiyo iyagoon markaa garaacisoo keliya aan la isticmaalayn. qodobka ugu dambeeya waxaynu ka warrami doonaa siyaabaha ubadka loo jeclaysiiyo inay waalidka u samafalaan. waalidku labada waalid intay nool yihiin adduunka korkiisa ay saaran yihiin inay ubadka baraan qaabka ubadka loo jeclaysiiyo inay waalidka u samafalaan, waalidka ay adeecaan. sidoo kale waxay soo hoosgeli doontaa qaabka ubadka loo baro ama siyaabaha loo baro oo looga ilaaliyo inuu markaa ilmuhu caaq noqdo ama waalid caasi inuu noqdo ayaan ku soo qaadan doonaa. marka 4 qaybood waxay markaa noqonayaan 4 qaybood ee hoos imanaya diyaarinta ubadka.
qaybta labaad ee barnaamijka waxa aynu ka dhigi doonaa binaa shakhsiyat الطفل الإسلامي يعني أما waxa la yiraahdo building the Islamic character of the child يعني ilmihii maadaama aynu soo diyaarinay oo aynu ka soo waranay 4 qodob oo lagu soo diyaarinayo waxaynu u soo gudbaynaa haddaba ilmihii markuu soo koro siyaabaha ubadka aynu markaa u dhisayno halkaa waxaynu u qaybin doonaa 9 cashar qodobka koowaad waxa weeye ilmaha markaa qaabka caqiidada looga dhiso qodobka labaad waxa weeye ilmaha qaabka cibaadada looga dhiso in ka warrami doona ka saddexaad waxayna ka warrami doonaa ilmaha qaabka looga dhiso in markaa bulshada qaabka u dhexgeli lahaa qaabka loo dhisayo ka afraad waxaynu ka warrami doonaa qaabka loo dhiso ilmaha markaa akhlaaqdiisa ka shanaad waxaynu ka warrami doonaa يعني qaabka loo dhiso ilmaha caadifiyada ama shucuurta marka ama waxa la yiraahdo marka emotional iyo psychological marka yani construction يعني ilmaha in marka psychology ahaan iyo cilmi nafsi ahaan iyo emotion ahaan dareenkiisa shucuurtiisa marka la dhiso qodobka marka lixaad waxaynu ka dhigi doonaa ilmaha in la dhiso marka waa maxay jirkiisa marka in la dhiso jirkiisa ilmaha in la dhiso ayaa ka lixaad noqon doona qodobka toddobaad waxa uu noqon doonaa ilmaha marka in laga dhiso qaybta cilmiga marka oo ilmaha cilmi fiican oo sax ah oo fiican la baro ayaa ka toddobaada ka sideedaad wuxuu noqon doonaa marka ilmaha in marka laga dhiso qaabka marka caafimaadkiisa ilmaha in la dhiso ayaa ka sideedaada qodobka u dambeeya sagaalaad wuxuu noqon doonaa siyaabaha ubadka marka looga ilaaliyo waxyaabaha martaqaana ilmaha dareenkiisa marka kicinaya ama waxyaabaha marka shahawaadka ah ilmaha uu ku fasahaadayo oo aanu ku hormarayn qaabka waxyaabaha jinsiga ilmaha looga difaaco ayayna marka iyadan insha Allah taala ka warrami doonaa maadaama waqti lagu jiro aad u adag oo dhalinyaradina marka deeminka adduunka oo dhan ay kala socon karaan hal meel ay ka wada socon karaan kaasaynu ku soo gabagabayn doonaa markaas 9 qodob labada qodob marka barnaamijka inoo soo dhamaado barnaamijka waxaan ku soo gabagabayn doonaa 3 qodob qodobka u horeeya waxa weeye talooyin gaar ah oo aynu siin doono waalidiinta marka qurbaha ku sugan waxaan kaloo ku soo gabagabayn doonaa qodobka labaad ah yani ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaan u mahadnaqno marka aynu ilaahay marka u mahadnaqno shukrigiisa la nimaadno qodobka saddexaad aan ku soo gabagabayn doonaa wuxuu noqon doonaa inaan marka referensiga ama casharadan aan soo jeedin doono meesha aan ka soo qaatay iyo waxa ay marka meesha aan ka soo referensiga aan u laaban doontaan inaan marka soo gudbiyo 3 qodob marka ku soo gabagabayn doona insha Allah taala barnaamijka barbaarinta ubadka saas marka inoogu dhameystirnaan doona insha Allah taala waxa uu noqon doona barnaamij taxana ah oo aynu weegiiba hal maalin soo galino insha Allah taala hadii rabbi ka dhigo dhinacayga waxa ah inaan marka soo diyaariyo ana marka idin soo geliyo idinkana dhankiina ha ahaato marka ina waalidka iyo ubadka ay noo sii gaarsiisaan soona ducaysaan marka sidoo kale waxa aad kala socon doontaan barnaamijkan Facebook page-ka Al-Firdaws Islamic Online ama YouTube channel-ka Al-Firdaws Islamic Online inahaasaan ku soo gabagabaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.